بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بaa mahad leh kadib waxaan jeclahay in halka idinka mahad celiyo bahdan warbaahinta saaka ana isugu kin yeedhay ujeedada ugu weyn waxay ahayd in aan ka falceliyo ama cabiro aragtidayda ku saabsan shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye baryahan bal hadal hayay sidaan hore warbaahinta ugu sheegay waxaan musharax u ahaa jagada guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxaan u cadaynayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye shacbi weynaha Somaliland inaanan ka tanaasulin hankaygii waxaan leeyahay madda afurin damacaygiina waa halkiisii shirweynaha la qabanqaabinayo ee afraad ee xisbiga kulmiye ee madaxweyne muuse u magacaabay guddi qabanqaabo isagoon cidna kala talagelin wax waraaqa oo aanu gudbistay ma jirto oo ku saabsan musharaxnimadayda sababta ugu weyni waxa weeye shirkaas waxaan u arkaa inuu yahay mid u afduuban madaxweyne muuse biixi cabdi uma arko madal xor ah oo loogu talagalay in lagu tartamo ama si siman loogu loolami karo hase yeeshee waa meel iyo munaasabad lagu dooranayo nin dooran markaa ninka la dooranaya waa madaxweynihii waa guddoomiyihii xisbiga isagaa shirka jeergaraynaya isagaa ergada soo xulaya isagaa guddiga qabanqaabada magacaabaya dowladdiisi iyo wasiiradiisi iyo xadaafiiraheedii baa imanaya markaa sawirka uu leeyahay waa ka ay runtahay markuu kaa yahay waxaan go'aansaday inaanan ka qayb gelin ka dhex loolamin kana mid noqon milxiis markhaati iyo kuwa ka mashxaradaya mid madaxweyne muuse biixi cabdi wuxuu cagta u saaray xisbiga kulmiye dhaba cagaag leh oo ku dhisan kelitalisnimo iyo kelitoocsi wuxuu ka duway xisbiga kulmiye tubtii uu ku soo caanamaalay ee ku dhisnayd tala wadaagga isu tanaasulka tuuraalaha iyo tawfiiqda waxaa mabaadi'da tiirarka xisbiga kulmiye u ahaa waxaa madaxweyne muuse iyo maamulkiisu ku bedeleen hal ku dhigyo aan dhaafsiisnayn looma baahna hebel ha iska tago sidaan u galay ma arkayseen muxuu ahaa iyo loo joojin maayo iyo wixii la mid ah madaxweyne muuse wuxuu ka tallaabsaday si badheedhana si cadna uu buriyey xeerkii xisbiga xeerkii iyo habdhaqankii xisbiga kulmiye ee ku saabsanaa madaxweyne la doortay inuu banneeyo jagada guddoomiyaha xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye waa xisbiga keliya ee yeeshay laba guddoomiye iyo laba madaxweyne madaxweyne axmed siilaayo markii uu noqday madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland 2010 wuxuu baneeyay jagadii guddoomiyaha xisbiga kulmiye arrin uu iska jeclaaday madaxweyne siilaayo oo keligii ku maamuusay muuse ma ahayn
arrin muuse biixi xoog iyo xeelad axmed siilaanyo kaga qaaday xisbigana ma ahayn waxay isfaham iyo xeer reer kulmiye ay gaadheen ayay ahayd xeerkii nooca ahaa madaxweyne muuse maanta wuxuu xisbiga gacanta ku hayaa isagoo madaxweynaha 3 sannadood oo ay ka dhiman tahay wax yari muddadaa intaa leegna baadi buu ku ahaa madaxweynaha Soomaalidu waxay tahay ammaano kugu raagtay iyo daadaad moodaa markii uu 3 madaxa la galayna hanti uu leeyahay buu qaatay marka xeerkii iyo habdhaqankii kulmiye u jidaysnaa sidaas u buriyay waxaa jiray nin la odhan jiray wiilwaal oo oday u ahaa beesha bartire ninkaasi wuxuu caan ku ahaa danaysi iyo damac iyo ficiltan iyo feejignaan meelo badan bay madaxweynaheenna iska shabihi jireen dhaqan ahaan dabadeedna nimankii bartire ayaa shiray waxa la waryaarayeen miyaynu maalin walba dee u dul qaadan karnaa ninku waa nin inala siman waa se inoo oday inuu laba cad keligii isku qaato la geeyo sararta inuu keligii maalin walba qaato wiilwaal miyaynu dee ka yeelaa maya baa la yidhi dee bi waaya rag u qaybino 3 nin baa loo qaybiyo waxay 3dii ragga ugu sitay way qaybsadeen hadalkii oo waxay yidhaahdeen ku hore wuxuu odhanayaa wiilwaal buu ku yidhi kii labaadna wuxuu yidhi labada cad kii saddexaad ee ay ahayd inuu ilaahay iskuma heshin buu hootadii qaatay nin feejigana markuu saa u qaatay buu yidhi mid kale ku darso cad kale de waa baridii mid kalena ku darso waxaan leeyahay hadday madaxweynaha ragga qaarkii ku yidhaahdeen labada cad isku hayso muusow waxaan ku leeyahay labada cad iskuma heshid xisbigu waa kii xilkuna waa kii xeerkuna waa kii shalay adiga ku xaq siiyey wuxuu yidhi saayid qamaan waxaan masow aabbaha iyo magan ka soo gaadhay rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi maso inaanu nahay oo tollimon meerto noo tahay xisbiga kulmiye wuxuu soo maray loolana adag oo dhexdiisa ah muddadii uu gaar ahaan dowladnimada qabtay 7 sano sababaha ugu waaweyn ee uu kaga badbaaday duruufihii iyo damacyadii ragga qoodhii badnayd ee iyo qoorweyntii ku loolamaysay waxaa saldhig u ahaa wuxuu lahaa mustambeed iyo marjac adag oo ahaa madaxweynihii qaranka axmed siilaanyo oo aan ahayn guddoomiyaha xisbiga meesha lagu tartamayna waxay ahayd guddoomiyaha xisbiga iyo musharaxa axmed siilaanyo xigaya wuxuu kulmiye kaga badbaaday ninka wax doonaya ee siidhiga haya ee haddana ordaya ayaan dee gacanta hal nin ugumay wada jirin waxaas axmed siilaanyo wuxuu ahaa madaxweynihii qaranka raggiisiina isaga isu celcelinayay ama mid ha tanaasuliyo ama mid ha la faqo ama mid ha ka maslaxo mid ama haba tartameen sidaasuu kulmiye ku soo badbaaday waxaa intaa dheer xukuumaddii kulmiye way guulaysatay waxqabad badan bay xaqiijisay waxaa sabab u ahaa waxay u gacan baxday howlihii qaranka ayay u gacan baxday xisbigiina hoggaan gaara iyo haldoor gaaraa joogay oo u gacan baxsanaa maamulkiisa 2 gamcood baanu ku kala wadnay wax oo isqooranaya oo iscaawinaya oo istaageeraya maanta waxaa muuqata in hal gacan wixiiba isugu tageen madaxweyne muuse iyo xukuumaddiisuna ay wixiiba iyagu ay horumarkii qaranka iyo howlihii adkaa ee hafiyey
xafilayay ay kaga mashquuleen xulid ergooyin xisbi hebel loo jawaabo hebel laga waxa laga saa wixii oo dhan misaasay noqdeen waxaan ka maqlaa mararka qaarkood iyagoo leh kala saaridda isku haynta laynoo qaati waa rag aan xeerarkii iyo habdhaqankii xisbiga isha ka lalinaya waa rag waaqaca dafiraya weeye raggaasi sidoo kale madaxweyne muuse wuxuu sabadheera uga baxay ballamihii iyo heshiisyadii siyaasadeed ee uu la galay waayeelka iyo waxgaradka taageerayaasha xisbiga kulmiye doorashadiisii ka hor meel fagaara ilyartu isqabatay uu ku ballan qaaday inuu markuu hadduu jagada madaxweynaha ku guulaysto uu wareejin doono kursiga taana waa ka baxay haddii uu madaxweyne muuse u yaqaano xariifnimo iyo xiniyo caddaan been la sheego iyo ballamaha siyaasadeed oo laga baxo waxaan leeyahay hogaamiyaasha wanaagsani waxay u yaqaanaan habdhaqankaas dhegxumo weyn iyo dhimasho siyaasadeed wuxuu yidhi ninkii la odhan jiray Winston Churchill ra'iisul wasaarihii ingiriiska dagaalkii labaad ayaa halku dhig buu leeyahay caana in war you can be killed once but in politics you can many times dagaalka mar baa lagu dhintaa buu yidhi siyaasadda si marar badan baa lagu dhintaa waxaa intaa dheer dad muslima baynu nahay oo ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyey ilaahay subxaana wa tacaala markuu la hadlayo dadka ilaahay rumeeyeyna waxa uu سورة المائدة كليها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود كوي إيمانك لقاه لي إلهي رمييو بلمها أوفيا عقشان بلمها يا عهدية السياسة وكأذجيهين بلن لبقف كشيء وحنا نكهد ليا ما هم مسبحي مدحوين موسى محمود حاشو بلن قلي وأنا جوح لي بلن قاضي ما هو كوين وهبدقن يا بلن يا عهد يا شيء سياسي وحنا قار ميل إياه لا أما أن كدو ذي لا أنا قارو إياها ما تشرو رجعن كمدها قرنا يقولون تقول ميل الله لم يدون ثم كمدها وحنسك هذا ليا سكوت بانو هذا ليا رسولك عليه الصلاة والسلام وحجري المسلمون على شروطهم تذكر مسلمين تاهي وحيرة وحيكون شيئا waxaan leeyahay halaad nin ku baratay ma xuma Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ninku siray kuma dilin balse waa ku digay madaxweyne muuse hadduu ballamaha iyo cahdiyada siyaasadda sidaa fudud uga siibto waxa isweydiin leh sida loo rumaysan sidoo uu aaminsan yahay in mar labaad loo rumaysan karo waxa see yaab leh hogaamiye aan qowl iyo qorshe cad lahayn waa arrin weyn oo isweydiin leh tawsta iyo tabaalaha xisbiga kulmiye ku habsaday kuma eka intaa qura ee madaxweyne muuse iyo maamulkiisu waxay qaybiyeen xisbigii kulmiye ee tin iyo cirib midnimadiisu sababtay inuu kursigii dalka u sareeyo maanta fadhiyo saalo loo saaro xisbiga kulmiye wuxuu ahaa xisbi ballaaran deegaano badan taageero ku leh xulufooyin badan ka kooban xirfad iyo xikmad badan gashay isku hayntooda aan iska iman iska soo lugoyn meel kale qabtaan waayin laakiin laga shaqeeyay oo lagu tabcay mana aha madaxweyne muuse ka kaliya ku tabcay
oo looga tacabadnaa rag fara badan baa uga tacabadnaa xisbiga raggii nooca dadkii nooca ahaa madaxweyne muuse iyo maamulkiisu markii ay xilka qabteenba way qaybiyeen waxay ka dhigeen wax la yaab kulmiyihii hore iyo kulmiyaha dambe waxaan maleeyaa erayada inaa maqasheen ay dhigiina ku cusbay raggaa soo saarayay qaar baan kulmiye habeen u ololayn ee muuse la shaqeeya maanta gacanyarayaasha u ah qaar baan habeen u soo dib jirin qaar soo shaqeeyana waa jireen waxay bixiyeen kulmiyaha cusub iyo ka hore dadkii soo halgamay ee aan xilalka iyo xukuumadda ka qayb gelin waxaa loo bixiyey kulmiyihii hore oo faashinka ahaa iyadoo laga faanayo dadkii nooca ahaa madaxweyne muuse farshaxan kuma aha isagu faalinta dadkiisa iyo ixtiraamka fikradaha ka dhanka ah balse wuxuu farshaxan ku yahay ficiltanka iyo kala fogeynta dadkiisa waxa halkudhig halkudhiga baa jira la yidhaahdo two things define you laba ayaa ku sheega oo kaa markhaati kaca your patience when you have nothing dulqaadkaagu wuxuu markhaati ka noqdaa markaanad waxba hayn your attitude when you have everything dabeecadahaaga iyo dareemadaaduna waxay ka markhaati kacaan markaad wax hayso marka markuu ninku hogaamiyaa yahay habdhaqankiisu dee wuxuu muujinayaa markaa dadnimadiisa ayuu muujinayaa madaxweyne muuse wuxuu si qaawan ula dagaalamay dowladdii dhistay ee uu garwadeenka ka ahaa saaxiibkii axmed maxamed maxamuud siilaanyo ee aan aniguna ka mid ka ahay waxaa hubaal ah kulmiye waxaa lagu doortay barnaamij siyaasi ah waxqabadkiisii hore ee xukuumaddiisaas baa u shafeeco qaaday waxaa kaloo lagu doortay barnaamij cusub oo labaad oo muddaxileedka labaadana kulmiye dadka ayuu ka yibiyey haddii dowladdii kulmiye ahayd dowlad unpopulara oon sumcad lahayn oo ummaddu ka kalsooni qaadatay oo nacday lama doorteen kulmiyihii muuse biixi madaxda u ahaa xaqiiqdu waa sidaas waayo labada xisbiye mucaaradka waxaanu kaga duwanayn annaga waxaa nalaga xisaabinayay maxaa qaba kulmiye muxuu qabtay 7 sano iyo muxuu qaban doonaa iyagana waxaa laga xisaabinayay oo dadku dhagahooda u raaridayeen muxuu qaban doonaa waddan iyo wixii xisaabta adag ee ah maxaa kulmiye soo qabtay iyaga lama weydiinay oo ahayd taa codbixiyaashu ku go'aan qaadanayeen labada hogaamiye ha kala duwanaadeen hase yeeshee xisbigu waa xisbigii uun mabaadidiisuna waa isku mid markii doorashada aanu ka baxnay waxaa madaxweyne muuse iyo maamulkiisu u dhaqmeen noola dhaqmeen waxaanu ku wareejinay dowl iyo dal midaysan iyo dowlad habaysan oo xil wareejin shay waliba qoran yahay oo wasaaradihii shaqaynayaan oo dakhligii socdo oo shaqaale hal bil mushahara aan amaaha ku maqnayn raashinka ciidamada amaahna lagaga lahayn wax waliba sidoodii yihiin qalin iyo warqad waliba isdul saaran yihiin ayaanu madaxweynaha ku wareejin isku dowladna waa isku xisbina waa nahay waxaa bilaabantay muddo dheer oo 2 sano ah halkii ay wax ka qaban lahaayeen iyo himiladii naloo doortay waxay ku mashquuleen caydii iyo xantii iyo xasaradii iyo ximintii xukuumaddeedii hore mar qura hadalna lagama maqal ma ahayn macnaheedu inaanu baqaynay macnaheedu ma ahayn inaanu bilaa damiir nahay laakiin waxaanu sabir iyo dulqaad iyo waayeelnimo ayaan waan ka waaya aragsanayn iyaga waayo
dowlad baanu soo maray dhibta dowladnimadu leedahay baanu garanaynay iyagoo dee rag layl cusuba bay ahaayeen marka runtii raggaas xukuumaddaa ku jiray hablo iyo ragba waxaan ka markhaati kacayaa inay dhexda marada ku xidheen guure iyo gabal carowba ay u shaqeeyeen xisbiga kulmiye si uu guulaysan lahaa la'aantoodna waxaa runa qoori fagaaray ka warsheekotaaye inaanay muxuu ahaa xisbiga kulmiye aanu madaxnimo ku guulaysteen hogaamiyaha aanu wadnay iyo haldoorka ku xeeran 10 saac bay seexan jireen ragga iyo hablaha xisbiga xukuumadda Siilaanyo ka midka ahaana labada habeenimo ay seexan jireen shantana way soo shaqayn jireen salaada subax markii tukadaan waxay muujinaysaa walwalka iyo walbahaarka iyo mas'uuliyadda iyo culayska nasaaraa cidda culaysku saaraa iyo assignmentka adag annaka yahay waanu ka walwal badnayn musharax iyo raggii la joogay raggii caanka ahaa iyo hablaha yagii waxaana lagu abaalguday xan iyo ximin iyo xasarad dalkii bay boobeen waxbay dhaceen waxbay qaseen war haddii wax la qasay ama haddii laynala xisaabtamo laynoo fiirsado wixii waxa soo bixi doontaa waxaynu ku loolanay wixii qaranka una inay ahayd in lagu adeeyo taasoo baa soo baxaysa madaxweyne muuse markuu musharaxa wuxuu odhan jiray road modelkaygu waa Axmed Siilaanyo maalintuu kursiga ku fadhiistayna isagii raggiisii wejigaas ay yeesheen wax kale ka odhan maayo anoo tiimkaygu hadlaya hadda anigu iska hadli maayo anoo ka hadlaya xukuumaddii aan ka midka ahaa dhammaanteed waxaan leeyahay tacabaydhe maantaba hadduu timiri caayayo tollaandhe raggii aan tiirka qabadsiiyey ya taana intaa baan ka leeyahay raggii aanu dhisnay hogaamiyahaanu dhisnay iyo raggii dhismihiisii wax ku noqday waxaa nooga xaniya xasarad wanaagsanaa iyo nooga xaniya xasarad yaraa kuwii aan u arkayay inaanu dowladnimadii ku muquunin aanu gacanta ku hayn yaa nooga dareenaya niyad wanaagsanaaday oo nooga xaniya xasarad yaraaday waxba yaanu xeerkay marin xoolanaysiina xaashinin libankaa xistiyey xumihii waya gabaygaa salaan carabe baa leh kii horena waxaa leh cali jaamac habiil colaadinta iyo ciilqabku kuma ekaan intayadii xukuumaddii ka mid ahayde waxaa la colaadiyey madaxweyne muuse iyo maamulkiisu waxay la dagaalameen taageerayaal badan oo xisbiga kulmiye ka mid ah oon xil xukuumaddaa hore ka hayn deegaano badan oo laga soo doortay oo siiyey cod duufaan leh ganacsato ku dhiig baxay ayaa lala dagaalamay oo maanta wada calacalaya beenaale markhaatigiisu fogeeyaa la wadoogi waxaa arrimahaasi ay ka dhabeeyeen hadalkii madaxweyne muuse biixi uu ka yidhi madasha haldoorkii doortay ee guusha soo hooyey isagoo aan 40 bixin lana gardaadin guushiisii halkuuga mahad celin lahaa ku yidhi fartiina ayaa dhexda ka qaniini doontaa taas uunbaa caddaatay ma aha waxaan ka hadlayaa dareen maxamuud xaashi ah waa dareen reer kulmiya xogagaal baanu ahay suuqaan maraa hadduu madaxweyne muuse meel kaga xidhan yahay oo uu yahay maxbuus maamuus leh madaxweynuhu waa maxbuus maamuus leh maaha muuse oo qudho madaxweyne oo dhanba anigu galab iyo habeen waxaan la fadhiistaa kuwii wax doortay waan dhegaystaa deegaanadaan marar tagaa marar badan baan khajilaa oo aan waxaan ku jawaabi waaya xaqiiqdu waa sidaa ninkii qumane qoorta loo suray waa isaga iyo yeelkii ee qiimeyn kari waaya halkaa waxaa ka muuqata madaxweyne muuse iyo maamulkiisu inay ku guul daraysteen xisbigii doortayna inay isku hayaan isla markaana ay ku guul daraysteen
doorashadii markay dhamaatay haarihii iyo boogihii iyo qaybsankii ummadda Somaliland ku yimi waxa waajib ku ah inay daweeyaan oo ururiyaan oo xantadkii doorashada biyaan lagama sugayn Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal waxa laga sugayay madaxweyne Muuse qarankii qaybsamay maanta oo 3 sano doorashadii kale lagu soo dhowdahay sidii uu qaybsan yahay waxaanay ahayd in la isu soo jeedo xilkana cidda guulaysataa balak xisb xabaadhiisii baa qaybsan maanta xisbiga kulmiye marka ninka xisbigiisa hogaamin kari waayay isku hayn kari waayay qaranna isuma keeni karo taasuu baa cadaatay inta markaan ku soo ururiyo waxaan jecelahay inaan dhowr eray oo kale xuso maalin dhaweyto waxaa is sharaxay محمد إبراهيم نكلا قبية ترى وحبك كفوجان مايو مرة وإنان هذا البدن كجلا وهي شركة قيمين تيسان موتشي يعني ساسانو أركي إسنو صوت تابطي وحان شيء يو صوت تابطي وعدي يوم مرخاتة ودعي وعن مغلى الرجلة هو إسكعياري قبل المشرح رسمي معي waxaan leeyahay raggu si kasta hayso hayo hayso xaqo laakiin inuu aad isugu talax tago ma aha ya qulu walaw i'dulu walaw ala anfusikum baylaayid cadaalad sameey xataa idinka hadda qof is qabataa marka uu iska nin weyn oo siyaasi ah oo han leh oo shalay kuwii soo halgamaya taariikh weyn kule qaranka iyo xisbiga kulmiyaba in xaajadiisa lagu soo ururiyo kul uu iska ciyaaray ninka lacagtiisitay ee jaaga keenay ee waraaqihiisii watay arintaas waxa weeyaan meel ka dhac weeyaan waana arrimahan la isu turay waana waxay ka muuqataa waa hogaamin xumo taa intaasan ka oranaya waxa kale oo iyadana aan arkaya kuraastii kale oo aan cidna lagula tartamin madaxweyne ku xigeenkii oo lala tartamayo ninka la tartamaya shalay guddiga qabanqaabadu Axmed Muumin Saadna waxay ku reebeen 5 sano inaanu buuxin wasiirka ganacsiga Saajina waxay yiraahdeen uu buuxiyay deewa way iska qaawantay waxaynu ka hadlaynay waxaynu ka hadlaynay markhaatibu u yahay dhacdadaas arrimahan ka hadlayay iyana sida taaqabo wasiirka ganacsiga xishmad buu iga mudan yahay ku xad gudbi maayo ixtiraam buu iga mudan yahay waa nin weyn oo qiimo leh laakiin waxaan ka hadlayaa xogaal waxaan ahay waaqiimu shahaadata lillaah markhaatiga ilaahay dartii fura baa la yidhi intaan ogahay baan furaya sirru daarina waana kama waqti foga wasiirka ganacsigu Saaje ina muumise markaan soo koobo waddanka Imaaraadka Carabta ayaanu tagnay annagoo wafdi ah gudoomiye madaxweynuhuna waa nagu jiray Muuse Biixi isagoo markaa gudoomiye musharaxna ah waxaanu u tagnay Saleebaan Axmed Guuleed gudoomiyaha jaamacadda Camuud oo baanu ugu tagnay qaliin ka baxay hudeel noo reer Boorama aan wada qadaynay oo ku jiro Saajin halkaasaanu ka soo hanuuninay oo ka soo kulmiyay maalinta aniga Muuse Biixi oo isagoo benshan galay waliba aanu ku nidhi wardaad tan wax ka doonaysana kaalay ta dambe hadda wax ka doonay kaalay noo nala shaqee oo maanta reer Boorame iyo meesha qalcadda Jibriil Yoonis nala jabi ee kulmiye ka maqan yahay saasay waa sanadkii ugu dambeeyay sidii ku soo dhoofay ku yimi ballankii fuliyay kulmiye la shaqeeyay marka taasina waxaas waxay wada muujinayaan wax uun dee la iska canta tabanayo muxuu ahaa wax walbana waa la isogyahay dee cidina isma qaldi karto ma garanayo madaxweyne ku-xigeenkana dee kursigiisa ila meeshu waxa iska ahayd
madal iska arooseh waxa wixiiskiisa loo taarget gareeyayna ku-xigeen hadduu doonayo ragga kalena dee ku-xigeenka uuba bannayn doonaa way isaga bannaanaan doontaa wuxuu ka laalaadaa waa hoggaanka weliba meesha afraad uu ka joogo waxaanu nisri war isna talow boqoladiinii lala dagaalamayo dowladdii hore ila isna taasuu ku jirayey sayid cilama halkaasaa lagu maagay baan siri waxaan ku ururinayaa aan leeyahay taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaan leeyahay fariintaan halkan uga gudbinayaa waxa weeye haniyad jabina waxaynu gelaynaa dagaal adag oo aynu dib ugu soo celinayno xisbigeennii tubtii saxda ahayd aynu ugu soo celinayno waxaan ku soo ururinayaa madaxweyne muuse waxaan leeyahay ismaroorinta iyo ismacaashiinta ka muuqata ismaroorinta iyo ismacaashiinta ka muuqata ma noqon doonto midaad mahadiso mustaqbalka balse aynu dhowro halka uu ku dhammaado awrkaa buubaalkeed hoggaankiisa haysa aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu